wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo warbixin siinayay guddida nabadgelyada iyo difaaca qaranka ee golaha wakiilada Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay maayir dhawaan lagu caleemo saaray gudaha magaalada Hargeysa. wasiirku isagoo arrinta iyo arrimo kaleba ka hadlaya waxa uu yiri ahaana kulamadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada ay ku kulmi jireen waxaan iska wareysanay xaaladda dalku marayo waxyaabaha u baahan ee wada shaqaynteeda guddida iyo wasaaradda iyo ciidankaba waxaan isla afkaranay wixii aanu ku wada hadalay oo dhan halkan oo ay u badnayd arrimaha nabadgelyada iyo xeerar golaha hoo yaalla oo ay ka mid yihiin xeerka golayaasha deegaanka iyo gobollada iyo ismaamulka gobollada iyo maamulka gobollada iyo deegaanka iyo xeerka booliska oo dhawaan golahu gudageli doono. horta marka ugu horeysa inagu da qaran baynu nahayo qarankeenu hal dastuur buu leeyahay qarankaasina halkiisa dastuur waxa uu tilmaamayaa shuruuc iyo qawaaniin dastuurka qaranka ka farcanta hay'adda ka hadalhayna waa xeerka booliska Somaliland xeerka kalena ka wada hadlayna waa xeerka qaranka raadaya gobolada ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeerar fara badan oo noocaas loo leeyahay xeer kastaana wuxuu ka hadlayaa qarannimada Somaliland had iyo jeer in la bunbuuniyo waxa weyn laga dhiga maaha cid mucaarid kule xeerka iyo dastuurka Somaliland ku jira arrinkaas arrin weyn maaha qarannimada Somaliland iyo nabadgelyada diidimayso waa cid baal martay cid kastaabaha ku adeegsanaysa xeerka qaranka ciidamada booliska iyo nabadgelyada dalkuna tallaabooyinkii ka qabteen horta waxa weeye xeer looma sameeyo qof caranaya xeerna looma sameeyo qof xilka laga qaadayo xeerka waxa loo sameeyaa qaranka guud ahaan baa loo sameynayaa xeerkan waxa la yiraahdaa xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka dalka meerada xilalka soo hayay xilliyada nimka la doortay qaar golayaashooda deegaanka xilka ka qaadeen qaaran dadka ka qaadeen ma jiro laakiin haddaynu nahna xeerarka waxaynu ku sameynaynaa nin meeyer hebel 23 degmo ee golayaasha deegaanka laga doortay nin meeyer balood u diiday hala soo garayo si intay tirada lagu eeriyo xeer looma sameeyo xeerka intuu soo shaqeynayay arrimaha gobolada iyo degmooyinka waxa markii hore maamulkoodu waxa kaga jiray xeer number 12 dabadeedna waxa la soo sameeyay xeer number 23 wuxuu xeerkaasi shaqeynayay labada xeer way wada shaqeynayeen xeerarkani waa xeerar ku salaysan hab maamulka iyo hab dhaqanka golayaasha deegaanka iyo goboladooda hatta xeerka waxa ku salaysan waa inaan wali hirgelin in golayaasha gobolada waayo dastuurkeena wali sameeyeen in goboladu ay noqdaan baarashaabadooda qaar la doorto xeerkana bacdama muddo soo shaqeynayay wixii xeerkaasi uu ku shaqeynayay dhibaatooyin ahaa wixii u baahnaa in lagu kordhiyo ayaa imika dib loogu bedelay xeerka asaaskiisu waa xeerkiisa hore 23 waxa imika lagu sameeyay waxa weeye waa kaabis iyo wax ka bedel